السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ونور محمد علي دقن مقدشة دقمة شنقاني. الحمد لله أنا مدلورة 10 سنة وأنا حنون سنة ولو حنون كي اللي يبير قليل كسكة ما نقوم كرو إن صورة قل إن العافماته قليل كنا وانكبغي مركز محل يبير السعودية يا البخرة القاسمة وانتجي دكتورkii markii la ila kulmay wuxuu ugu dhahay ani qaliin waxa lagu sameyn karaa shayga markuu meel uu ku kooban yahay marka ciladani aniga wax aan bixi karo ma ahan wax meel ku kooban ma ahan waa mugdi caloosha dhan waa mugdi wax aan qaliin la dhigi karno male dawadan la siiyo ilaahay kala saaro uu yiri muqdisho aan ku soo noqday Soomaaliya markaan ku soo noqday dhaqaatiir badan oo Soomaaliya oo muqdisho isbitaalada ku yaal dhamaan inta badan waan la xiriiray waxay ugu dhaheen kelida waa la bixina mar labaad waa la igu celiyay waxa la yiri dhakhtarka badal oo isbitaal kale oo magac la liisii sheegay waan tagay waxa la igu yiri kelida dhibaatada haysata ma ahan kelida waa xameetida iyada ayaa yani inspection qaaday in xameetida la bixiyo la tuuro iyo kelida ku caafimaadaysaa alxamdulillah gawar ayaa ii timid aniga xaafada ku sugan وكان دوني إن هندي هذا في سر سدو si aan halkaas isugu soo dhaweeyo marka gabadhu waxay ugu tiri adoon ugu qalin oo hindii tigin ayaa dalka ka helaysaa dawo ma ogtahay murtooy mayaan ku yiri waxay ugu dhahday subaxdii ii kaalay waan imaaday kambaniga ii keentay dhakhtarka ila kulansiisay computer la saaray wuxuu yiri dhakhtarka ma la kulanta dhakhtar hore haayaan ku yiri wuxuu ugu dhahay muxuu ku sheegay wallahi wixii la ii sheegay inta kuma soo koobi karan ku yiri laakiin hadda waxaan doonayaa inaan xal helo aan dawo helo dawadii aan qaatay markii la siiyay dhowr gasac dawo aan qaatay xaafadii aan ku noqday waxa la igu yiri intii dawo kugu baxday markaa ku bogsoobaysa labadan dawo waxa ku bogsoonaysa maanayaan waqtiga lagaaga qaadin ilaahay tala saaro waana ku dhoofineynaa iyo dalka dawadiisa ku qaadaynaa ilaahay waa tala saarnaa dawadan inaan cunaan ku qaracsanaan ku yiri dawada waan cunay waan qaatay waan ku soo noqday dhakhtarka anoo inta dhaamo waxaan ku yiri waa fiican hadda dhibaatada way iga yaraatay ciladii haysay maxay ahayd xageysa ka baxday anigu wallahi ciladii aadan u xanuunsanayay haddana xanuunka ilaahay waa iga qaaday alxamdulillah waxaan doonayaa cudurkii ahaa in yani la ii faafaayo cudurka ku haa ilaahay waa kaa bixiyey wax saa u buurana ma hayna maxaa dhakhtarka muxuu kugu dhahay kelida bidaxana waa laga bixinaa xameetidana waa la tuuraa saasaa la igu yiri marka waxaan dhahay dhibaato aad u daran way haysay dhowr iyo 10 sano waa la xanuunsanay dhinacan labada dhinac ka mid ah uma seexa jirin marka haddana ma dareemayo ciladii maxaa xagee aad cilad wuxuu yiri dhakhtarka cudur hadduu ilaahay kaa qaado inaad raadayso ma fiicna dawo kale ku siinaa isticmaal dawadii kale aan qaatay maalintii ay ugu dambeysay 6 bilood ka bacdi waxaan qaadan jiray dawo dhaqitaan waxaan u xaadiray hadba markii isbitaalka soo diro cadda mar waxda xaadiray marna digfeer marka waxa la igu dhahay 6 bilood ka bacdi day dhaafto adiga ka gutooy waa noqonay 6 bilood waqshada la soo diray ku dhamaatay dawadii ku soo noqonay 6 bilood ka bacdi dawadaas aan qaadan jiray waxay ugu dhahan xalan kaas een kuumeen ama waa dhaqid oo 6 bilood ka bacdi aad jeekin loogu sameeyna ama waa lagu qalaa oo kelida bidaxda iyo xameetida laga saaraa marka alxamdulillah muddo hal sano ayaa laga joogaa ciladaas waqtiga aan waayay dhowr iyo 10 sano waa la xanuunsan alxamdulillah